السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا الله ولا القال السود وهذا جرنا وجرنا كيما اسكراب هذا لايك هذا شير هذا اسعبت على ذاك اوكي بريها horta waxyaalo badan waxaa jiray oo social media isku haysto isku qabsahayo gabar oo la dhahayo caruurteeda iyo ninkeeda ay ka tagtay iyadoo la qabay muddo 25 sano ah ay macnaha ay nin la wada ay guursatay ninkii ilmaha ee u dhashay ayaa social media soo fadhiistay arrintaas ka hadlaayo beryahan taas oo isku hay shalay ma ayaan horna video aan ka sameynay laakiin hadda xaqiiqdii bahashu ay u dhowdahay xaqiiqdii wax la dhahay ay u dhowdahay markaan ku dhahay intaas maxay tahay isla micnaha ninkii asaa anina qabo ilmaha u dhashay la dhahay laakiin hadda waxa waaye gabarteedu weyn oo jirto 22 jir ah in ninkii 25 sano qabay ayaa hadlaayo okay in waxay taagan tahay waxaas ninka aad sheegaysi iyo ilmaha aad sheegaysi maba aqaanay taagan tahay bal fiiriyo qof adiga 25 sano la qabay oo dhashay 8 caruur ah 3 ay ku dhinteen Soomaaliya Allah u naxariisto 5 ay joogto dalka Sweden gabarta ugu weyn ay jirto 22 jir ah bal maxaa keeni karo habartaas in ay inkirto ilmaheeda ay aado wiil dhalinyaro ah oo adiga iyada u yaran inuu ka yaryahay loo maleehayo wiilka waxaa la yiraahdaa Kamaal ayaa la yiraahdaa dad badan oo baryahan isku qabsahayo okay Kamaal aabihiisna wuu ka hadlay arrintaas oo dhahayo aniga gabartan macna waxyaalaha qaar nooma aan sheegin in la qabo nooma sheegin haddii la qabo waa raaligelinaya ninkeeda wiilkayna waa la hadlay laakiin telefoonka ayuu iga dansaday عجيب من العجيب أبيس أيو تلفون كتنسدي هدي ماشا وح جيرين ويل كان كمال لدها أبيس محو تلفون كودنسدي أوكي كمالو ميدان كويديها أديك هرو أدو أدو أوغين قفتها إن لغاو أوكي ما تواد أوغاتي جبرتي دا نين كيدا دات كيدا إهل كيدا لن أيا صوحر لي أوكي واد أوغاتي أديك مينا تخفي عن تهي محاد أوليه وايز ورالي هرو هرو أما أنا أوغين maadaama haddii la qabo qoftaan aniga in la qabo uma maleeyihiin iimana sheegin saas darteed aan ku qaldoom walaalahay halaga raali ahaado naagtaasna waa tahay maanta ka bacdeen isma sheegan maxaa u dhihi waysa dad ku fiican tahay okay dad badan oo ka hadlaaya waxaan arkayay Ayub Karl oo ka hadlaaya oo dhahayo ninkan naagtu uu sehray okay arrintu waxaan ku bilaabi doonaa ninkii naagta laga dhacay ayaan ku bilaabi doonaa adeeradii ciddii oo dhan waa wada hadasheen cid ninkan qabato oo tirada war hadaniyo waxani sax ma aha ma waayo oo ninkan macnaha la qabta waa su'aal fiican waay Kamaal aabihiis eedadiis abtigiis waa adeerkiis haye kulligood waa ay la hadleen waxa ay la hadleen markii dambe fiidiyadii oo ka saaray meesha oo ku soo wada celiyay waa soo celiyay oo ku soo wada celiyaa waa gartay markaasay la hadleen waxa ay soo wacay adaga ay soo wacay way soo hadalna ayaka Cabdulxamiid hadda fiidiyadii wixii meesha oo ka saaray ninkan waa ku soo wada celiyay waa gartay waxa la hadalno dhaa aniga eedadiis abtigiisa Mareykan jooga la hadlo waa u sheegnay cabdi waa ka saaraho yiri ma ka saarin markii labaad aan ku celina ama maalmii labaad aan ku celina anigana telefoon iga ma qaban u dhaha qabahayo hooyadiis ma ka qabahayo abtigiis ma ka qabahayo ninkaas nin naga jeesto way Cabdixamiid meel aan ka gaarana ma jooga afgooyaan jooga Istanbul jooga waxba kama qaban waad maqashaan wuxuu taagan yahay ehelkiisa dhan ayaa la wacay waxaa la yiri ninkaas saas ayuu sameeyay bal maxaad ka dhahaysiin waxay taagan yihiin Istanbul ayuu joogaa anagana arrintan wax aan ka qaban karno oo Ilaahay abuurtay male ninkan waa nin naga jeestay oo calaasha naga go'ay waay maadaama aabihiis iyo eedadiis iyo adeerkiis iyo ehelkiisa telefoon oo ka qabo waay bal waxaa cad ka dadka hadda fiirso videoan labaad wuxuu ku sheekeeyaa qaabka uu sameeyay gabarta aad hadla doonto أنا اللي جوكتي أنا وين
markaas wuxuu dhahay curud marka videosha waxaan hooyada ka duubta meesha maka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegoye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaala leedahay marka wuxuu dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waayo hooyadeyna way tahay hooyada markay tahayna anaa og hooyadeyna tahay maxaa lahaa bafiisyaal badanna waa haya marka waa blokeeyey miga traffic markaas maiga qabana block u isaare walaayadan waxaan kala ordaa waa arkay laakiin ma jecli inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale wey ilmihii hooyadooda waay wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecli inaan ku degdega ma jecli anaa absalaan ahaan intii taqaana xaafadaana deganay magaaladaan deganahan macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii igu kaa dambeysay ayadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yaryahay dunida si ciyaarkeedu jeclay maantana waxay mara ciyaal ma dhan inay dhahdo ma ogin macnaha inay dhaweyso hooyadeed aad soo wacday taleefonkaan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxaa noo caddaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameehayo inaysa ogeyn ah muuqaal hooyadeed inkira tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhagaysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheeg oo u dhibsahayo usa dhagaysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqo waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama beri aad saamaynta ay yeelatana asaga mas-uul ka noqohay ninka mas-uul ka noqoha asaga waad aragtaan micnaha wuxuu taagan yahay in qof micnaha ilmihii ay dhashay inkirayso kolle waxa daaray wax yar ma ahan uu taagan yahay xaqiiqatan waa sax ilaan qof ilmihii ay dhashay iyo hooyadii iida dhashay ma aqaano waxa keeni kara maxay tahay waxa keeni kara waxay tahay qof micnaha maskaxdeeda aysan joogin ayaa warhaas ku hadli karto okay ujeed kale oo gabadhan ka leeyahay oo aan ahayn inuu ku shaqaysto waxay og tahay mala gabadhaan inuu inta meesha marwalba soo fadhiisiyo hadal oo yidhaahdo ma gabar aan ciyaalkeeda aan ka warqan inkiraysa aan ogeyn xasuusnayn inkir macnaha ma ka wada macnaha ma xasuusna aabaheed ma xasuusna hooyadeed ma xasuusna waxaan kamaal ahayn ma maqasho waxaan kamaal ahayn ma maqashaan ku kamaal uuna taqaan bis gabadhaan gabar sixran waay runta markii la rabo xaqiiqdan la rabo sababta waxyaalaha ay ku kacaysa ma oga waa garta marka ay soobiheed ma oga gabadhan ilmeyga xaaskooda ilmeyga hooyadood ah aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yaryahay dunida si ciyaarkeedu jeclay maantana waxay mara wallaahi horta ninkan walaalkeeya ah waa horta dhibkaada horta allah kuu dhibdhaamo kow dheh laakiin waxaad ogaataa in micnaha qoftaan oo maskaxdeeda aysan joogin waxaa ku caddeehaayo waxyaalaha horta meesha ka dhacay okay ninkan walaalkay ayaa ka hadlaya wuxuu dhihi doona ayaan rabaa inaan dhegeysano waa sixroole laakiin waxay dhabta wax sixir weyn maxaa yeelay gabar haysata ilma waa weyn gabadheeda weyn waa 21 jir gabadhan dumaashiday ah wax noocaas ma samay karta dee gabar yar xataa haddii ay ahaa lahayd waxbaa dhigay kamaal qofka hadda kula jooga hooyada ay ku facta adina waxaad ka raadinaysaa dhoof inay ku dhoofida iyo waxyaaba noocaas haddaan kula hadlaa noo iibka hadlaan kula hadlaa gabadhaas waa aniga dumaashiday nin walaalkay ilma u dhashay xelahaaga weligeed ma isan noqon mana noqon karto wax baraankeed ma jiraan inuu ilaahayga u laabo ninka gabadhaas qabana wac cad ku dheh xitaa waxaad micnaha baloog saartay ilmaheed marka ay kuu sheegeen in gabadhu ay tahay hooyadood aabahoodna oo qabo
balog baa saartay kamaalow marka dhammaan inta kamaal garanaysa ama jecel wanaagiisa u sheega runta si hoosana u sheega si publicana u sheega arrintan aniga waa arkayay in maaragtay ay meelxun ku socoto hase ahaatee caddaynta oo dhammaystiranne waxaa la soo gelinayaa laakaha media cabdisalaankii naftigiisii baa hadlaya cimraan laakaha u tegay gurigiisa ugu tegay maasha allah wuu wareystay waa kaa aragtaan ninkan wuxuu taagan yahay qoftaas waa qof adiga hooyadaa ku fac ah waa naag cilmi iyo caruur leh allihii ku uma ka cabso ninkii naagti qabay inaad wacdo walaalkay iskee cafadheh ee walaalkayo arrinta aad ku socotona way qaldan tahay la soco okay horta waxaad ogaataa qofta qof micnaha yaroo micnaha maanta la dhahayo akhlaaqeed waa la doori la dhahayo taa ma aha waa qof weynaa gabartii i dhashay waa 21 jir ah gabarteeda u weyn waxaa ogaataa walaalkayo horta adduunyadan naag way buuxdaa beledka naag lama laha waxaan ku dhihi lahay naag la qabo maad wax ka raadi lahayd waxaa ku dhaanto naag madax banaan way meesidii allihii ku uma ka cabsan ku dhihi lahay naftarkeyga okay wiil meeshaana gabartan maadaama clip ay soo duubtay dhehayso aniga wax ilmo ma dhalin waxaad sheegaysiina ma aqaano nina ima qabo ay dhehayso facebookkeeda ayuu wiil galay waxyaalaha oo ka dhahay wiilkaas ayaan rabaa ina ila dhegaysataan وطن قبل كمان يمكن السكويس يعني عوان كذا فيسبوك حتى ولا قدرت صومال سردوم واي وطن أفكر وماشي عم قصو في الكرا يدي عيال كذا أدق يدي هور وحيورن ماشي على الود ليه وطن هاي يدي ما شاء الله ذلك كذا وكان يبليهين يحاج كذا حتى عيالك أبوت عيالك وكوانا أنا لكن كم الدنباب كرنوا وأسقبان وأسفرن لملا وليوسو لكن إن عيال لي ذهبين معهم وطنها حاجيتي حاج كذي دي حاج كذي كلت الله بحاج سكويست ما شاء الله الله أنا يكسكويست وانا عيالك قارك مده اوكي واد aragtaan micnaha horta barnaamijyadu way ay badan yihiin qoftaan in micnaha oo waxyaalo badan oo micnaha cadeeman laga keen waa ujeedeen waxaan ku dhihi lahaa kamaal waxaad raadihiis kale ma aqaano wax walbo meeshan ay ku cad yihiin waxaa ogaataa facebookgeeda hataa in la galay ay ku jiraan sawirada ilmaheeda iyo ninkii hadda qabo ilmaha ee u dhashay oo sheeganayo oo wada jamac sabar ayaa meesha ku wada jiro waxaan ku leeyahay kamaal dhiiqa ayaa lugaha kula jirtaa walaal qaali waxaan ku leeyahay kolle hadalladeena inuu ku dhibaayo waa laga yaabaa kolle waxaan ku dhihi lahay dadka qaar waxay ay dhahayn horta ku dhihi maayo ani qofkaas wuu sixri dhihi ma karo laakiin waxaan ku dhihi lahaa walaalkayo qoftaas waa qof la qabo ninkii u tago muxuu naqaha waxaad ogaataa ilaahiy ku umahtaa ma jeclo waxyaalahaas waxaan ku dhihi lahaa allahada ka cabso qoftaas waa la qabo haddaad hore u ogeyn hadda ogaabo walaalkayo waxaan ku dhihi lahay qoftaas waa qof ilmo iyo xaas oo nin leh waxaan ku dhihi lahay waxyaalaha idan dhex mareen ninkeeda kolley waad cafis waad weydiis kartaa dadka dhanta ku dhahayo khaladaadka aad gashi caf waa dhih waxaan ku dhihi lahay walaalkayo dhiiqa ayaa lugaa kula jirtaa ee dhiiqadan saad ugu bixi leeda falkeeda gal waalidka ku dhalan inaad telefoonka aad ka dinsid ayay meesha ku caddeeyeen okay waxaad ogaataa horta waxyaalo badan ayaa jiro haba jira muxume sideeda waxaa fiican qofka bini aadanka ah in allihii uume inuu ka cabsado inay horta muhiim tahay allihii ku ume ka cabso okay waxaan arkay ninkii siikii ahay oo aan ka sugayo micnaha in micnaha uu yiraaho niyo si wax u jiraan kamaal inuu dhalinyarnimo u waxa uu yiraaho warar si wax u jiraan saa insaan waaye wuxuu taagan yahay waxyaalaha camal haddaa aragto afka laga qabsaa maba la hadlo taas dhaqan ma ah sheekada ma taagna siikeeyo gabar kaleeda socoto ma taagna waxay taagan tahay famil dhan qoys dhan qof yar oo micnaha adiga oo aan la qabateeda barnaamijkeena maanta intaas ku gaacanaadahay is arag dambe